gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashi Yuusuf Axmed ayaa maanta magaalada Baydhabo si rasmi ah ugu furay shirweynaha qaran ee xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed waxaana goobjoog ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo kuwa maamulada ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa muddada uu socda looga hadli doonaa heerka cadaaladda dalka, sareynta sharciga, xoojinta wada shaqeynta maxkamadaha dalka, wuxuuna socon doonaa ilaa 3 maalin. Xeer ilaaliyaasha maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubbaland ayaa dhammaantood soo dhaweeyeen shirka si wada jir ahna ay u xuseen in dalka wali nidaamka cadaaladda uu aad u hooseeyo sida ay sheegeen. beledkuna mayl kusuugeeyeen wala kusuugay may kamida xafiisadii qaara bedeli oo may suugeeyeen wal oo hadda ka hor ma balan kusuugeen wadanku iyaan kusuugeen xafiisyaal oo cusub iyaan kusuugay oo kusuugay iyada lan kabahday usuntaas iyo wali kale usugali والله خير والشر مهم oo laga tashanayo maslaxadda caamka ah oo dalka oo ku saabsan nidaamka xeer ilaaliyaasha dalka. waxaan maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadi halkaan isugu nimid magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed shirweynihii qaran ee xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed maadaama oo xafiiska xeer ilaalintu uu yahay kaalin muhiim ah ama door lama ilaawaan uu ka qaato hay'adda garsoorka waxaa marka noqotay lama maarmaan in halka xaliraashir lisu yimaado. gudoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Cali Muuse ayaa soo dhaweeyay in shirka labaad ee xeer ilaaliyaasha qaranka lagu qabto magaalada Baydhabo. Wuxuu halkaasi baaq ugu diray shacabka Koonfur Galbeed oo ah in aysan maxkamad u tagi karin goobo aysan ahayn maxkamadaha Koonfur Galbeed ka jira. xeer ilaalinta sidaan aaminsanahay waa aasaaska garsoorka laanno dee xeer ilaalin aysan jirin maxkamadna ma shaqaynayso. xeer ilaalinta waxaan aaminsanahay inay lafdhabar u tahay cadaaladda. waxaan rabaa fursadda aanu ka faa'iidaysanayo inaan fariin yar u diro dadka ku noqon reer Baydhabo. waxaan rabaa inaan u sheego garsoorid ha noqoto meelaan maxkamad aan garsoor aan loo tegi karin. waxaa badatay in la furto meelo dadka la leeyahay waxaa lagu garnoqaa maxkamad ama dadka lagu garqaada in la dhaho ha ahaadaan cadowga ama ha ahaadaan qof kasta u ahaado. waxaan rabnaa meesha keliya oo loo maxkamad tegi karo oo qofka uu gartiisa ku noqson karo inay maxkamad ahaato. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir hadal dheer uu goobta ka jeediyay isna wuxuu si adag u la dardaarmay maxkamadaha dowlad goboleedyada. waxaa kale uu ka hadlay inay jiraan faragelin lagu hayo hay'adaha garsoorka ayna ku hayaan laamaha fulinta iyo sharci dejinta gudaha dalka Soomaaliya sida uu warka u dhigay. wasaaradda cadaaladda garsoorka ma hoos yimaado. garsoorku wasaaradda cadaaladda waa wasaarad xubin ka mid ah maamulka fulinta. sidaa darteed waxaan leeyahay dhammaan hay-adaha ay khusayso ee ugu horeyso faragelinta ku sameeya garsoorka ama fulin ha noqoto ama baarlaman ha noqdee inay tallaabadaas sharci darrada ah ay ka waantoogaan. waxaa ka dhalan kara faldambiyeed mararka qaar maxaa yeelay waxaa imaanaya abuse of power, xadgudub qaanuuni ahaa imaanaya, qalinkaaga xadgudub ha ku aadi. garsoorku waa hay-ad madax bannaan, shaqadeedana u madax bannaan. waxaan codsanaynaa madaxda sharafta leh iyo hay-adaha dawliga ah oo wada shaqaynta ay ka dhexayso maadaama aan nahay hal heykalo hal dowlad ah in hay-ad walba shaqadii qaanuunka u igmaday loo daayo. ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Baashi Yuusuf Axmed ayaa gabagabadii hadalkiisa ku sheegay in loo baahan yahay ilaalinta sharciga, carabkana ku dhuftay arrimaha madax bannaanida garsoorka iyo goobaha aan garsoorka ka warhelin oo dacwadaha lagu xaliyo. shirarka noocan waxa weeye waa meelaha la isku waraysto ee la isku weydiiyo maxaa inooga hirgalay qorshayaashii aynu lahayn sanadkii tagay ama sanadka aynu ku jirno waxyaabihii inoo qorshaysnaa maxaa inooga hirgalay. markaas waxaa loo baahan yahay inaan loo fikirin oo keliya xafiiska xeer ilaalintu
inuu dembigu marka ay CID usoo gudbisa ama boolisku usoo gudbiyo inuu dacwadii oogee sida ay u baadhayaan iyo habka loo marayo iyo tallaabooyinka la qaadayo dhammaantood waxaa loo qabanayaa instructionskiina iyo jihayntiina arrinta lagu soo celceliyay madax banaanida garsoorka oo ka kooban xeeraalinta iyo maxkamaduhu runtii madax banaanida garsoorku waxay dan u tahay qof kasta waayo dal waxaa lagu qiimeeyaa kow inuu leeyahay garsoor madax bannaan dal haddii laga waayo garsoor madax bannaan dalkaasi waxa uu ka mid noqonayaa wadamada fashilma